بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkaan aan ku sugannahay waa qasrigii boqor cismaan naxariistii janna allaha siiye waa goobtii ugu dambeysay runtii waxaa arkaysaa micmaarka iyo naqshada iyo quruxda ilbaxnimadaas qadiimka baad ku arkaysaa waa goobtii ugu dambeysay ee isticmaalkii reer galbeedku ay gacanta ku dhigaan Soomaaliya ugu dambeysay xukun Soomaaliyeed gacanta looga dhigo waxay ahayd October 1927 iyadoo magaaladan duqeyn lagu sameeyay iyadoo magaaladan dagaal badan lagu sameeyay iyadoo dadkii deganaana ay iska caabiyeen isticmaalka iyagoo diidanaa isticmaalka madaafiic laga dhacay masaajidkii aan arki doono October 1927 ayuu qasrigan markaas wuxuu galay gacanta Talyaaniga runtii waxay ku tusaysaa ilbaxnimo aad iyo aad u qoto dheer waa turaad ama waa dhaxal Soomaaliyeed una xaqna u leh sida UNESCO ay u ilaaliso turaadka ama dhaxalka taariikhda adduunka loo ilaaliyo oo xaq u leeyahay in loo ilaaliyo loona xafido halkan waxa weeye waa xafiiskii ama qasrigii boqorka halkan waxa weeye khasnadii boqorka waxa weeyaan uu lahaa maalintii la qabtay sidii ay u xirnayd baylaayi hadda u xiran tahay runtii taasna waxay ku tusaysaa dadka deegaanka Baargaal amaanadooda iyo xafididooda runtii wuxuu u baahan yahay qasrigaanu waa taariikh Soomaaliyeed waa taariikh guudhaa wuxuu u baahan yahay taariikhdan in la ilaaliyo in la xafido in la dhowro in uu noqdo mid ay dhaxlaan jiilasha soo socda runtii waxa uu hadda ku dhow yahay 9 sano uu marayaa inta uu sidaan u dayacan yahay markii waxa weeyaan taladii Soomaaliyeed ee ugu dambeysay gacanta Talyaaniga ay gashay ee la wareegay qasrigan waxa laga joogaa 9 sano waxa laga yaabaa 100 sano ka horeysay inuu dhisan yahay ilaa 200 sano ka hor ayay micmaarkan ay sidaas aynu u lahayn حلايا درا إن المدح البحنمدود وعي شرنا إن البحنمدين يجيب النقطة أو وحويان ذاتكي وقت قال بقر نكور ضبعيضان يقولي عن شرحات بدن قروح بدن بسنجري إن هذا وحويان ذاتكو أي بسنيان بوشش أي بسنيان بعد ذلك وحفار عن هذا الكيسيد ومدح وحلو بين تاريخ ذا أي راشدان البحنمدود أي راشدان هرين الله هرمريو هرين الله سعدا وحنجينا إن الحلقة عنا إلى إلاليو أي نكون فكر نسيين هرين وسي سعون لهين هذه الله runtii qasrigaanu waa dhaxal waa taariikh runtiina xaq buu u lahaa in la xafido dayaca ka muuqdana mas'uuliyadeeda runtii in wax la iska weydiiyo waa laga maarmaan anigu waxaan ugu horeyn saarayaa dayacaas farci iyo dadkii ka farcamay boqor Cismaan naxariistii janna Allah ka siiyo mas'uuliyadda ugu horeysay inay leeyihiin dhaxalkaas inay iyagu ilaaliyaan inay dhowraan inay xaq ay ku ahayd oo ay dayaceen sidoo kale dadkii uu boqor Cismaan boqorka u ahaa dhamaantood mas'uuliyaddaas ay wada leeyihiin gaar ahaan intii joogtay ee qasrigaas intuu sida u bololayay oo uu doorsoomay ag joogtay iyadoona mas'uuliyinta waa ay leeyihiin sidoo kale waxaan ka marnayn oo mas'uuliyadda ugu weyn iska leh dawladda Puntland ee loo yagleelay ummadan inay taariikhdeedii iyo magaceedii ilaaliso qaran Soomaaliyeed inta laga helayo qaran Soomaaliyeedna ay baadi doonto maalintii la yagleelay ilaa iyo maanta dhaxalkii taariikhda ahaa ee sooyaalka ahaa ee Puntland ay lahayd wax laga qabtay lama arko Baargaal baa sidaan u dayacan علولا سيداس وكلا وديعان بران با سيداس وديعان حبيرا سيدا وديعان تلاح با سيدا وديعان أيل با سيدا وديعان يدولكي بدن أو تاريخ دلها بنتلان أو دن أيا سيدا وديعان وهذا حل سوماليات أننا قعنت كوهينا إننا مسؤولية دولة سارن تاي بريكا مالنا سوماليين نقول حساب تنتو أنت أصور حل سوماليات أيا دولكي نكويا لهم حتى قبتين بحاس اللي يكيمد وأيام ظهره إن أرجو كحاره صانع يوبر برسيهين haddana inay laga maarmaan tahay intii ka damqanaysa dhaxalkaas inay u kacdo sidii goobaha taariikhiga ee Puntland ku yaal loo xafidi lahaa loo dayactiri lahaa meeshii dhagax ka dhacay dhagax loogu celin lahaa meeshii dhoobo ka dhacday dhoobo loogu celin lahaa meeshii nuurad ka dhacday nuurad loogu celin lahaa waxa weeye waa taariikh sugan waa sooyaal ummadaha adduunka ku nool sooyaalkooda iyo taariikhdooda way ilaashadaan ummadaha adduunka ku nool xadaaradoodu way kordhay dib uma noqoto marka inaan ilaashano taariikhdeeni oo ummadda Soomaaliyeedna meel walba ay joogto wixii taariikh Soomaali leedahay inta ag joogta mas'uuliyadeeda iska leh wixii burbura iyo wixii dayacma iyo wixii waxa weeyaan xumaada intaba marka waa laga maarmaan qasrigaanu hadda wuxuu leeyahay miyaanan dad lahayn